Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran channelka soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daadaa. Sida aynu wada ogsoonnahay waxaa jira meelo badan oo qurxoon oo dunida ka mid ah, dadkana ay jecel yihiin inay booqdaan ama dalxiis u tagaan goobahaas quruxda badan. Laakiin sidoo kale waxaa jira meelo badan oo mamnuuc ah inaad booqatid ama ku dalxiistidna lagu oggolayn. Muuqaalkan ayaana ku soo bandhigaynaa 5 meelood oo dunida ka mid ah oo mamnuuc ah inaad booqatid amaba aadan jeclaan lahayn inaad goobahaas dalxiis u aadid. Haddaba si aynu u bilowno muuqaalkan, fadlan subscribe saar channelka. Muuqaalka haddaad ka heshayna like saar. Mahadsanid. Godka Lascaux ee waddanka Faransiiska. Booqashada godka Lascaux waxay kaliya gaar u tahay saynisyahanada iyo dadka ku xeel dheer taariikhda ee baaritaanada ku sameeya goobaha taariikhiga ah. Godkan waxaa ku jira sawirro taariikhi ah oo la sawiray 17,300 oo sano ka hor. Sawirrada waxay gaarayaan 600 oo sawir, waxayna isugu jiraan xayawaano iyo bini'aadan iyo sawirro kale oo la garan waayay noocay yihiin. Xayawaanada halkaa ku sawiran waxaa ka mid ah lo'da, dibiga, deerada iyo kuwo kale oo badan. Nasiib daro godkaas waxaa la xiray oo inay dadka booqdaan laga mamnuucay 1963 ayadoo looga cabsanaya inay burburiyaan sawirrada qadiimiga ah ee godkaasi ay ku sawiran yihiin. Jasiiradda Masaska ee waddanka Brazil. Jasiiraddan waxay 93 mayl ka fog tahay xeebta São Paulo ee waddanka Brazil. Sababta loogu bixiyay magacan jasiiraddii Masaska ayaa ah in halkii mitir ee jasiiraddaasi ka mid ahba ay joogaan 5 mas oo suntooda halis ah. Jasiiraddan waxay caan ku tahay inay joogaan masas midabkoodu dahabi yahay, suntoodana ay 5 jeer ka halis badan tahay masaska kale ee jasiiraddaasi joogaan. Masaskaas dahabiga ah qofkii ay qaniinaan way adag tahay inuu ka badbaado suntooda. Sidaas darteed ayay dowladda Brazil u mamnuucday inay dalxiisayaashu ay booqdaan jasiiraddaas halista badan. Jasiiradda Bovaglia ee waddanka Talyaaniga. Bovaglia waa jasiirad yar oo ku taala inta u dhaxaysa magaalada Venice iyo jasiiradda Lido. Jasiiraddaas waxaa loo bixiyay magacyo kale oo badan sida jasiiraddii cidlada ahayd, jasiiraddii geerida iyo jasiiraddii reer aakhiraadka. Jasiiradda Bovaglia qarnigii 18aad waxay ahaan jirtay xarun lagu karantiili jiray dadka qaba cudurka daacuunka, waxaana ku karantiilaysnaa in ka badan 160,000 oo qof oo qaba cudurka daacuunka, kuwaas oo ku noolaa halkaas maalmihii ugu dambeeyey iyo saacadihii ugu dambeeyey ee noloshooda. Sababta halkaas loo keeni jiray ayay ahayd inay halkaas ku geeriyoodaan kadibna meydkooda la gubo. Sida laga soo xigtay warbixinada qaar, 50% ciidda jasiiraddan waxay ka kooban tahay haraagii dadkii halkaas ku geeriyooday. Jasiiraddan ayaa markii dambe loo beddelay isbitaal dadka dhimirka qaba lagu daweeyo, laakiin isbitaalkaas wuxuu ahaa mid sumcad xun leh. Dhakhaatiirtii isbitaalkaas ka shaqayn jirtay waxay ahaayeen kuwo manaxyaal ah oo bukaanada si xun u jirdili jiray, markii ay dhintaanna waa ay gubi jireen. Bukaanada loo keeni jiray xitaa haddii ay xaaladooda fiican tahay waa ay dili jireen. Laakiin muddo kadib waa la xiray, dadkana waa laga mamnuucay inay jasiiraddaas Bovaglia ay booqdaan. Jasiiradda North Sentinel ee waddanka Hindiya. Jasiiraddan waxay ka mid tahay jasiiradaha laga mamnuucay inay dalxiisayaashu ay booqdaan. Waxaa degan qabiil tiradooda lagu sheegay inay gaarayaan 400 oo qof, waxayna jasiiraddan ay ku nool yihiin 60,000 oo sano. Qof aan ayaga ahaynna kuma noolaan karo. Waxay diideen inay la xiriiraan ama xiriir la sameeyaan dadka ayaga ka baxsan. Jasiiraddan waxaa ilaaliya dowladda Hindiya, waxayna ka hortagaan inay baarayaasha iyo dalxiisayaashu ay gudaha u galaan. Laakiin qabiilka jasiiraddan ku nool ayaga ayaaba iska difaaca dadka bannaanka uga yimaada, waxayna ku tuuraan falaaro iyo waramo. Qof isku day karta inuu jasiiraddan gudaha u galana ma lahan. Kuwii horey isugu dayay inay galaanna ayaga ayaa dilay. Sidaas darteed ayaa loo mamnuucay
in jasiiraddan la booqdo. Jasiiradda Surtsey ee waddanka Iceland. Surtsey waa jasiirad yar oo ku taal xeebta koonfureed ee waddanka Iceland. Waxay ku samaysantay natiijo ka dhalatay qaraxyo fulkaano ah oo socday muddo 4 sano ah. Waxay samaysantay intii u dhaxaysay 1963 ilaa 1967. Surtsey waxaa la sheegaa inay tahay jasiiradda ugu cusub ee dhulka aynu ku noolnahay. Waxay u furan tahay inay booqdaan dhowr saynisyahano iyo cilmi baarayaal. Loomana oggola inay dalxiisayaashu ay booqdaan, sababtoo ah looma oggola inay bini'aadanku ay waxyeello u geystaan jasiiraddan cusub.